መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ገደሉን ተሻግረናል። ገድል በህዳሴ አትመናል። dowladda Itoobiya ayaa si rasmi ah u shaacisay dhamaystirka mashruuca muranka badan dhaliyay ee biyo-xireenka Abay oo caalamka loo yaqaano Grand Ethiopian Renaissance Dam oo loo soo gaabiyo GRED. biyo-xireenkan oo ku yaala webiga Nile ayaa noqday kan ugu weyn qaaradda Afrika, waxa uuna muhiimad weyn u leeyahay dhinacyada tamarta, dhaqaalaha iyo siyaasadda gobolka Geeska Afrika. biyo-xireenka muranka badan sababay ayaa waxa uu leeyahay in laga dhalin karo awood koronto oo ka badan 5,000 oo megawatts, taas oo Itoobiya ka dhigi karta dal awood u leh in uu koronto dhoofiyo. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in mashruucan uu astaan u yahay horumar iyo midnimo qaran, isla markaana uu door weyn ka qaadan doono kobcinta dhaqaalaha gudaha iyo gobolka. dhanka kale, dalalka Masar iyo Suudaan ayaa walaac xooggan ka muujinaya saameynta uu biyo-xireenkan ku yeelan karo qulqulka biyaha Nile oo si weyn ay ugu tiirsan yihiin. labadan dal ayaa horey ugu baaqay in laga helo ama arrintaasi laga gaaro heshiis sharci ah oo damaanad qaadaya isticmaalka biyaha, halka Itoobiya ay ku adkaysanayso in mashruucani aanu waxyeello u geysan doonin deriska, balse uu yahay mid loogu talagalay horumar iyo midnimo iyo dan qaran. inkasta oo mashruucani si buuxda loo dhammaystiray, haddana xiisadda siyaasadeed ee biyaha Nile weli waa mid taagan, waxaana laga yaabaa in arrintani ay saameyn weyn ku sii yeelato xiriirka siyaasadeed iyo midka istiraatiijiga ah ee ka dhexeeya dalalka gobolka. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah, ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.